haddii in badan aad ku wareertay magaca Soomaali oo la maqli jiray qarnigii 14 ilaa kii 15 wixii ka horeeyay, haddaba ummadda Soomaaliyeed maxaa la dhihi jiray? Waa su'aal qof kasta oo uu ka fikirayo, balse maanta kadib ha isku wareerin magacii hore ee Soomaali wuxuu ahaa iyo taariikhda halkuu kaga jiray. Boqortooyadii Macrobia waxay ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu fac weynaa ee ka hana qaaday Geeska Afrika, gaar ahaan dhulka ay maanta degto Soomaalidu. Waxay ahayd boqortooyo qarniyo ka hor ka jirtay xilliyadii qadiimiga ahaa, waxaana laga helaa xuskeeda qoraallo badan oo ay reebeen qorayaashii Roomaanka iyo Giriigga sida Herodotus, oo sheegay in dadka Macrobia ay ahaayeen dad aad u dheer, caafimaad qaba, isla markaana hodan ahaa, taasoo magacooda ka tarjumaya maadaama Macrobia ay ka timid erey Giriig ah micnaheedu yahay nolosha dheer ama kuwa cimri dheer leh. Boqortooyada Macrobia waxaa lagu tilmaamaa in ay ahayd mid hodan ah, xoog leh, lehna hanaan siyaasadeed, ganacsi iyo dhaqan sugan. Waxay caan ku ahayd in ay la ganacsato boqortooyooyinka kale ee wakhtigaas ka jiray sida Faraaciintii Masar, Rooma iyo boqortooyada Aksum. Dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsanaa ganacsiga xoolaha, fooxa, malmalka, dahabka iyo waxyaabaha kale ee qaaliga ah ee ka iman jiray dhulka barwaaqada ah ee ay maamulayeen. Dad badan oo cilmi baarayaal ah waxay aaminsan yihiin in boqortooyada Macrobia ay ahayd hormuudka ummadihii Soomaalida, taas oo muujinaysa in Soomaalidu leedahay asal qadiimi ah oo qoto dheer, isla markaana ay door weyn ka ciyaareen taariikhda Afrika iyo ganacsigii badaha. Boqortooyada Macrobia waxay astaan u tahay taariikhda soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed, waxayna caddayn u tahay in Soomaalidu ay leedahay dhaxal dhaqameed iyo taariikh lagu faano oo u baahan in la barto, la faafiyo, lana xuso mar walba. The Ethiopian Empire was believed to have operated at its peak during the first millennium BC. Dalka Soomaaliya ee maanta la yaqaano wuxuu lahaa taariikh qoto dheer oo soo taxnayd qarniyo badan ka hor dhalashadii Nebi Ciise. Dadka Soomaaliyeed waxay qayb muhiim ah ka ahaayeen ilbaxnimadii Geeska Afrika, waxayna ka mid ahaayeen qowmiyadihii ugu horeeyay ee ganacsi, siyaasad iyo dhaqanba ka sameeya xeebaha badweynta Hindiya. Wifot was a medieval Muslim sultanate in the Horn of Africa. Led by the Walaashma dynasty, it was centered in the ancient cities of Zeila and Shu'a. The kingdom ruled over parts of what are now eastern Ethiopia, Djibouti, and northern Somalia. Mid ka mid ah boqortooyooyinkii hore ee dhulka Soomaaliyeed lagu tilmaamo waa Macrobia, boqortooyo qadiimi ah oo aad looga sheekeeyay taariikhdeeda xilligii Giriigii hore. Macrobia waxay ahayd boqortooyo la aaminsan yahay inay ka bilaabatay dhul ku dhow xeebaha badweynta Hindiya, gaar ahaan koonfur bari Soomaaliya. Waxaana la sheegay inay xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed la lahaayeen boqortooyadii reer Masar iyo kuwo kale oo ka jiray Bariga Dhexe. Waxaa la sheegaa in boqortooyada ay salka ku haysay dhaqan adag, nidaam cadaalad ah iyo kalgacayl ay u qabeen deegaanka ay ka taliyaan. Macrobia waxay ahayd dhul xad weyn oo leh nidaam dowladeed, ganacsi ballaaran iyo xiriir kale oo caalami ah oo lagu xasuusto sida ay uga horeysay xilliyadii gumaysiga iyo boqortooyooyinka kale ee Afrika. Halkaas ayay ka soo bilaabatay oo waxay ahayd tilmaan muujinaysa awoodda iyo barwaaqada dhulka Soomaalida. Boqortooyada Macrobia waxaa la aaminsan yahay in ay soo bilaabatay qarnigii 1 ilaa kii 8 ee ka hor miilaadiga, xilligaas oo ay dunidu ku jirtay waqtiyo taariikhi ah oo aysan jirin dowlado casri ah, balse ay jireen boqortooyooyin xoog badan oo ku dhisan dhaqan, awood ciidan iyo ganacsi. Sida laga soo xigtay taariikhyahankii reer Giriig ee Herodotus iyo qoraallo kale oo qadiim ah, Macrobia waxay ahayd boqortooyo aad u qani ah oo ka jirtay meel u dhow xeebaha badweynta Hindiya. Taariikhyahanadu waxay rumaysan yihiin in Macrobia ay horumarisay beeralayda, kalluumaysiga iyo ganacsiga xoolaha, gaar ahaan geela, taas oo ahayd hanti weyn oo lagu qiimeeyo bulshooyinka Soomaalida ilaa maanta. Waxaa kale oo la sheegaa in boqortooyada Macrobia ay lahayd nidaam waxbarasho iyo mid garsoor oo aad u horumarsanaa marka loo eego waqtigaas.
dadkii aasaasay boqortooyada Macrobia waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen dad Soomaali ah oo asal ahaan deganaa Geeska Afrika, kuwaas oo lahayd dhaqan midaysan, af mid ah, iyo nidaam hogaamineed oo ku dhisan talo wadaag iyo raadraac qoysas boqortooyo ah. boqorka ugu caansanaa ee la xasuusto waa boqor ay reer Faris ugu yeereen boqorka dahabka sababtoo ah hanti badan oo uu lahaa, gaar ahaan dahab, xoolo iyo qalabyo kale oo qiimo weyn lahaa. qoraalada qadiimka ah waxay tilmaamayaan in boqorkan uu ahaa nin dheer, xoog badan, caqli badan, isla markaana dadka si cadaalad ah u xukumi jiray. waxaa kale oo la sheegaa in boqortooyada Macrobia lagu aasaasay aragti qabiil iyo mid diineed labadaba, iyadoo loo adeegsan jiray xeelado dhaqameed iyo xeerar gaar ah si loo ilaaliyo nidaamka bulshada. suugaanta iyo dhaqanka Soomaalidu maanta leedahay waxa uu raad ku leeyahay boqortooyadan qadiimiga ah, taas oo ka dhigaysa in aasaasiyaashii boqortooyadu ay ahaayeen hormuudka hidaha iyo dhaqanka soo jiray qarniyo badan. boqortooyada Macrobia waxay xukumi jirtay qaybo ballaaran oo dhulka Soomaalida ah, kuwaas oo ku fiday xeebaha badweynta Hindiya laga soo bilaabo Kismaayo ilaa Boosaaso. deegaanada ay xukumi jireen waxaa ka mid ahaa xeebaha Jubbaland, halkaas oo ay ku yaaleen dekedaha ganacsiga ee la xiriira Carabta iyo Hindiya, gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ay ku tabcanayeen beeraha iyo xoolo dhaqashada, gaar ahaan geela iyo lo'da. xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya, Puntland, kuwaas oo lagu tilmaamo hoygii boqortooyada Punt, oo taariikhyahanadu aaminsan yihiin inay la xiriirto Macrobia, bariga Itoobiya iyo Ogaadeen, oo ay gaarsiisay awoodeeda ciidan iyo dhaqaaleba. Macrobia waxay ahayd boqortooyo isku fidisay meelo badan, iyadoo si xoog leh u ilaalin jirtay xuduudaheeda, ganacsigeeda iyo dhaqankeeda. waxay lahayd ciidan xoog badan iyo hab maamul goboleed oo ka shaqaynayay in la ilaaliyo kala dambeynta. burburka boqortooyada Macrobia wuxuu yimid kadib markii ay daciiftay awooddii siyaasadeed iyo midda ciidan ee boqortooyada. waxaa jirtay dhowr sababood oo isugu jira kuwa gudaha ah iyo kuwa dibadda ah, sida kuwii kaga yimid boqortooyadii Farisiinta iyo ganacsatadii Roomaanka ee isku dayay in ay la wareegaan marinada ganacsi ee Macrobia. waxaa laga yaabaa in boqortooyadu ay la kulantay khilaafaad gudaha ah oo ku salaysan awood qaybsiga iyo hoggaan la'aanta. abaaro daba dheeraaday iyo isbeddel ku yimid cimilada deegaanka ayaa sababay in khayraadkii dabiiciga ahaa yaraado, iyo in ay soo baxaan boqortooyooyin cusub sida Aksum oo ka dhisnayd waqooyiga Itoobiya, taas oo qaaday tallaabo xagga doorka ganacsiga iyo xiriirka caalamiga ah ee ay horay u lahayd Macrobia. ugu dambeyntii, boqortooyada Macrobia waxay si tartiib ah ugu milantay taariikhda iyadoo raadad badan ka tagtay. inkastoo aysan jirin boqor rasmi ah oo la hayo magaciisa si sax ah, haddana dhaqanka, suugaanta iyo raadadka taariikheed ee ay ka tagtay ayaa weli laga dareemaa dhulka Soomaalida. boqortooyada Macrobia waxay ahayd tiir dhexaadka taariikhda Soomaalida iyo guud ahaan Geeska Afrika. waxay ahayd tusaale ka turjumaya awood, cadaalad iyo dhaqaalihii hore ee ummad Soomaaliyeed lahayd. inkastoo aysan sii jirin, haddana waxay ku reebtay Geeska Afrika raad sugan oo mudan in la xuso lagana barto taariikh iyo ilbaxnimo.